hargeysa waxaa joogi jiray laba dumar oo waalwaalan oo dawarsada wixii ilada ah iyo wixii igu dhowdhow way garanayaan aniga nuuriye mid waxa la oran jiray marooro midna waxa la oran jiray carab weyn laba dumar oo waalwaalan bay haayeen waana dawarsan jireen islaantan marooro waxba u dhinaa mana aqli badnayn waxay ku soo mari jirtay maqaayadaha la fadhiyo markaas waxaan oran jiray marooro shilinka hooyo nabiga ku salli shilinkuna wax qaali waa markaa de sadaqa la isuma siiyo markaas ay oran jirtay hooyo nimaanaan isaqoon afka haysu kaay gelinina hooyo nimaanaan isaqoon afka haysu kaay gelin shilinkaaga iska hayso hadaad wax siinaysi halkaasay ka taagneed waa gabadh wax u dhiman yihiin islaantii maroore sidaa ahayd ayaa loo soo geed fadhiisto la guursaday maroore waa la guursaday deedna nin baa gabay ka tiri oo wuxuu yidhi maroore la guursayoo dumar malaa u baxay oo malaa carabweyna cadan baaba looga iman oo malaa carabweyna cadan baaba looga iman marka waxaan fahmay in midabka oo la bedelaa aanu calafka soo dedejin waxba ma keeno midab la bedelaa calaf sidiisana midab foolxini ma jiro midabku haddaba haddii aanu calafkeen haddaanu foolxumo xambaarsanayn maxay tahay xikmadda ilaahay uu bini aadmiga u kala duway midabadooda ilaahay baa ka jawaabay tabaaraka wa tacaala xikmadda uu ka leeyahay midabka wuxuuna ilaahay ku tilmaamay inay tahay aaya min aayaati illaah bal u fiirsa aayadda ilaahay muxuu yidhi ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين لبتشير بإلهي ومن آياته أن خلق لكم من آياته خلق السماوات والأرض واختلاف الليل واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات يسأتهي للعالمين dadka cilmiga leh hadaad cilmi yani raad raac samayso midabku wuxuu kuula geli doonaa ilaahay awoodiisa xikmadan ilaahay ee midabka ka dambaysa gacantaad u taagi doontaa waa aaya min aayaati illaah midabkan ilaahay kala bedbedelay ninkii shaacirka waa kii odhan jiray waxaa dunida caynba cayn looga dhigay hays cajabiyeen ilaahi calaykum haddaynu dhammaanteen isku wada suurad noqon lahayn haddaynu dhammaanteen isku wada midab noqon lahayn identitygeen muxuu noqon lahaa kani hadduu nin dilo ka kale maxaa lagaga garan lahaa labadan ruux hadday isku wada suurad yihiin khalqiga meesha aad jooga aan la kala garanaynba labada mataanaha ah ee wada dhashee isu eg ayaynaan kala saari karin haddii ilaahay isu keen wada ekaysiin lahaa maxaa dhici lahaa inuu inanku hooyadii ku qaldamo soo maa inuu aabbuhii inantiisa ku qaldamo ilaa la kala garan maayo makhluuqaadkii bini aadmiga waxaa ilaahay u kala bedelay in dadkii la kala garto kii dembiilaha ahaa iyo kaan dembiilaha ahayn kii caabidka ah iyo kaan caabidka ahayn kii waxyeello geystay iyo kaan waxyeello geysan inay dadku dirsooc yeeshaan oo dadka la kala garto inteennaasoo dhani isku midab madow ah baynu leenahay haddana madow la digoon ma jiro iminka haddaad saa imika u egto alwaanta imika inteena afrikaanka ahay midabada aynu xambaarsannahay nin la midabii kuma jiro haddii bini aadmi la odhan lahaa idinku kala rasameeya markay 10 qof kalarkooda kala duwaan ka 11aad ka koowaad buu uga ekaan lahaa ama ka boqolaad kii koowaad buu uga ekaan lahaa si ay u kala socon may garteen haddana ilaahay wuxuu awood u yeeshay intaasoo makhluuqa adduunka oo dhan aadamaha jooga nin la midabihi ma jiro haddana midab kuwan yaroo isku soo noqnoqonaysa qof la sawdihi ma jiro haddana dhammaan 8 xadhigay hungurigayga ku taalun baa laga wada dhawaajinaya nin la talaabihi ma jiro marka la soconayo qofka marka taqaano socodkiisaad garanaysaa nin la raa'ixadihi ma jiro soo dhididkeenu ma uro nin la urihi ma jiro waxaa daliilu ah suuratu yuusuf nabi illaahi yacquub muxuu yidhi innii la ajidu riixa yuusufa lowlaa an tufanniduun xataa dhididkeennaan isku ur ahayn marka midabkanu wuxuu tilmaamayaa
قدرة الله تبارك وتعالى إلهي أوديسيا سيدو وحوكل الددوي كر مساجد كايمك أنت فريدك اللي هذا مر إشادكم مشغول يسو روح لما يدبكم مشرو هذا نواف الكام بين وضعنا آيات كلام القرآن با إلهي كجور موحولي ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانه ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء بل بدأ آيات ختمات ودو فرصو إن في ذلك لآيات للعالمين آيات كلنا إلهي وحوليه سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء مذب كيبا وحال يعني لملكسيي علمي قال لقيه ليو عدي أقون أولى مبا فهم كرتا سرت كجرت مذب كان وإلهي تبارك وتعالى إلهي تبارك وتعالى مذب كان ميوكل جعلي هاي كأفريكان كعدان كعرب مع عرب نمو أفريكان نمو إيشيان نمو إلهي أكل جعلي مذب كودا لا تاسنا الدين تلقوا محدين وكان رسولك عليه الصلاة والسلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى مركا إلى فهمتي حكمة كتشرت مذبك وحان إسلق هذا الناي مذبكو إنا أنو قروح حنبارسنين كليدي قفكو واسدو إسكادقاؤون واسدو إساقو آمين سيهي إنو يهي هدو إساقو إسنعو أو إسقران وايو قيمها أولي يهي عد قيمين إسا مجرتو قف إساقو إسقيمين كريواي عدنا قيمين ميسو